allo sarsi bulshada sinjiga kamilaysano waqod kala soo lahay arir lagu wada kama ana kusano wahaw hargeysay sababa sirada baxno ahaw sinjiwa maguurana Soomaali waa mid meel kasta joogaan aybaha weyn waxaan uga rajaynayaa inuu dulmiga iyo ciilka dumar iyo dhalaan iyo dhalinyaro iyo waayeel intaba uu ka qaado Nairobi Kenya bulshada Soomaaliyeed ku dhaqan waa kuwa cabsi ku jooga kurbada kuleel uu dheeriyay ninka la yiraahdo Axmed Rashid waa tuuga ugu weyn ee amal ka dhigtay iyo caado bulshada ku nool Kenya inuu dhibaato gaarsiiyo siraha qarsoon bulshada Soomaaliyeed walaalaha ee guuxa iyo qabiilka la dhex dhigay aan doonayo inaan u bandhigo wax weeye Axmed Rashid iyo Daahir Cali soo godobta ay ka galeen dhalinyarada Soomaaliyeed ee kala Sharma Boy iyo Deeq Darajo qabiilku waa waxa ay duleeyay kuwaasuna iyo kuwa lamida wadanahay daneeyaan bismillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan Soomaaliyeed meel walba dunida ka joogtaan Allah weyn waxaanu ka wada rajaynayaa caafimaad iyo cibaado suuban iyo amal khayr mid kasto muraad lehna inay bahay muraadkiisa mid khayr ka dhigo kuwa xanuunsan caafimaad ama siiyo kuwa geeriyooday jannadii udgooneed hoy uga yeelo kuwa laga geeriyoodaa samir iyo iimaan ka siiyo kuwa dhasha haysta ee bahay dhasha u barakeeyo kuwa dhal sugayna dhal barakeysan siiyo lama horaan dalkeena iyo nabada iyo Soomaali weyn oo mid ah hadda waa shanteenne taasna ee bahay waan weydiisanay waxaan tagayaa Nairobi aniguna waxaan matalayaa bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Kenya dulmigana loogu geysto dhalinyaro iyo dhalaan dumar iyo waayeel intuba waa kuwo cabsi ku jooga haddaba waxa fiirooyinka khaldan iyo ficilada liita sameynaya waa faraku tiris iyo dhowr xabo la tilmaami karo midi waa Axmed Rashid shaydaan weyn oo caado ka dhigtay bulshada Soomaaliyeed halka ku dhaqan in loo soo adeegsado dabadato isagoo askariya uu noqday dhiig miirato ku danaysta bulshada Soomaaliyeed baada sidoo doono dumarka ka yeela dhalinyaradana ku doona dila xaaladda maanta u dhow ayuu wiil Soomaaliyeed dhalinyaro xataa madaxa ka toogtay haddaba Deeq Darajo wax badan baa qarsoon oo anigu xaqiiqdii aan ogaaday oo dulmiyo uu sangeysan waxaan tilmaamayaa in ciil la baday inaan ka dhalinyarada iyo Sharma Boyba labada nin oo baday ciilka ay yihiin ninka la yiraahdo Daahir Cali iyo ninka la yiraahdo Axmed Rashid nina waa hawiye nina waa daro labada nin waa shidada socota ee Facebook ka socota labada nin ee abaabulay weeyaan arrinkan waxa uu sameeyeen koowaad waa dantooda iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee walaalaha ah inay isku diraan oo ay dulmiyaan waa tan labaad tafaraaruqa bulshada Soomaaliyeed ku dhex jiray muddo inay sii bombooniyaan haddaba waxa aqli xumo iyo waxaan ka caroodo noqotay bulshada Soomaaliyeed aan ogahay dulmiga iyo qabyaalada iyo quranku halka uu dhigay inay maanta kuwa liita ficiladooda qaateen oo ay rag iyo dumar dhalintii la islaha dalka way dhisayaan ay iscaayayaan haddaba intii hore u joogtay waxaan leeyahay gacmo barakooba oo ii soo dhawaado fariista intiina dib naga soo biirtayna gacmuhu aydin barakoobeene subscribe tasiida waani oo jooga caawa Nairobi Deeq Darajo waa inaan ka Sharma Boy saaxiibada ahaayeen oo YouTube-ka ku aaminay inaan dhalinyaro oo isku daayihiin cilisho milix ay yihiin saaxiib ay yihiin ay isaamineen waxba qabiilka ma yaqaaneen Kenya iyo markay inankaas joogay YouTube-kan halkaas uga hagaayay inan yar oo dhalay iyo xaaskiisuna ay u joogeen marka Sharma Boy iyo Daahir Waati ay magaranaysaay dood iyo hal dagaalku u dhaxmaray oo waliba gardarada Daahir Cali soo inanka uu ku aaday ilaa wanika weyn oo isma keeni karaan oo isma leekay masayrka uu ku aaday in gaayirka ay la bomboonay ee la amaanay ee dalkiisa ku raaxaysanay ayuu ka inaas dabada ficilkii xaasidnimo waa kan ninka yarka ahana la ficilshamay oo 20 jir intuu geed ka baduu tala ka booday oo magaranaysaay hadalla iyo wixii ficil iskaga dhicin karo yiri dabada wixii yiri haddaba Sharma Boy xagee baad ka gali kartaa waxa weeye uu ka jilcsay wuxuu yiri Deeq Darajo maadaama uu yahay ninka YouTube-ka u haya Nairobi uu joogo waa halka kuugu fudo marka waxa weeye Deeq Darajo dulmi baa laga galay aniguna sidaan Sharma Boy ugu laab qaraacanay shalay ayaan maantana Sharma Boy waxa weeye Deeq Darajo ugu laab qaraacanay nin dhalinyaro Soomaaliyeed oo la dulmay oo deegaankiisa joogo Doofaar Cali uu dulmay haddaba kan hadii aan Soomaalinimo iyo lahaa way ehl kanuna waa nin walaalka ila dhigay dhacaan oo Soomaaliyeed Deeq Darajo
dulmiga loo geystay nimanka u geystana niman waxa weeye rag iyo rabbi toonna yaqaano maaha, niman iyo ehel toonna yaqaano maaha, niman xeer iyo xeerin toonna yaqaano maaha. marka anigu Deeq Darajo sida aan shan mabaysho u garab taagnaa ayaan maanta u garab taagan. qof kasta oo damiir lehna kolka uu sheekadeeda maqlo uu uga damqanaya oo u garab istaagay. daayir wuxuu soo wacay inay dhahaan Axmed Rashiid oo waxa weeye fariyo suluuqaada oo dhiigyo caba oo waxaan ku iri wa abulah dhalinyarada Soomaaliyeed maalin walba dila ilaahay kuma darnaadee kuma ka dhaco Kenyaati kale inuu aado Uhuru Kenyaati qoysaskiisa iyo reeriyowga kale iyo Kenyaati kale kuma dhaco Soomaaliyeed buu xogay maalin alla keeno xaladaas waxa weeye inay yaro Soomaaliyeed dila. marka waa doofaar shisheeye ku adeeganayo isagana aakhirkiisa Kenyaati baa dilaya kelmadda ay meel ku qortay. kaas marka waxa jira kuwa ku hoos nool oo cayayaan yar yar oo tuuga kale taa kuwaas ayaa daahir malaha shilmaad u soo diray wixii ninkii Deeq ahaa iyo soo qabta. Axmed Rashiidka iyo laba kale oo haadaan oo magaranaysaay eeyihiisa yararka ah ayaa isu soo raacay waxay soo aadeen ilaahay kuma darnaadeen cunugii Deeq Darajo ah. Deeq Darajo ma loo yimi keligii ma uusan ahayn wuxuu ahaa mid bulsho la joogo Deeq Darajo waxa la yiri Deeqme Axmed Rashiid baa yiri markaasuu wuxuu yidhaaheen isaga wuxuu yiri waa aniga markaasuu intuu baaskoolad madax kaga qabtay sooka ninay Faysal Hanad dahaan oo ma garanaysaa fartuun birima qabi jiray oo fanaana xataa wuu suuxayo halkiiba ku dhacay. ilaahay caafiyo waxa la yiri xaalad xanuun baa ma garanaysaa sokor iyo wax uu qabayo caradiiba halka ku dhacay. dalata waxa dhacday dambe kama aysan gelin inankii yarka aabka haysteen oo luqada kale la galeen wariya telefoonka qalabay telefoonka waxa ku jira malcuumkii weynaaba ku jira in cala soo ah baaskoolad baa inaka laga qabtay waxa dhib wariya buu yiri baaswarka nimanka u dhib inankii xoogaa wuxuu yiri ma yeegada waa lagu soo celinayaa buu yiri adigu dhib. marka sidii baa inankii yarkii ahaa looga qaaday baaswarkii wixii koodoo looga baahnaana waxa weeye telefoonkiisa gacanta lagu hay. inankii yaraa marka waa taa Soomaali oo idil ishaaraysatay oo iimaysay oo colaadisay oo ay cayday baqdin iyo argagax baa ku dhacay xataa wuxuu noqday mid gurigiisa joogi waayay. Axmed Rashiidkiina wuxuu yiri haddaad jiiq tiraahdo adiga sheegtay ilaa reerkaaga ma soo dhacay ilaa waa bahal malcuum oo waxa kan caadaystay culimadana waa la hadli doonaa meesha joogto war waa dameeya. marka waxa dhacday inankii sheeko waxa weeye argagax bay ku noqotay iyo wuxuu qaadan waayay wuxuu sameeyay waa garan waayay. ninka Sharma Boy marka qofkii fiidiyoyadiisii hore dhageystay baa dhageystay waxa uu dareensanaayo dhawaaq uu ku tilmaamay aniga YouTube waxba ii sheegay waa tuu lahaa walaalkay iyo saaxiibkay baa ii muhiim. ninkii marka Deeq ahaa hadii xaaladaas oo ay ku dhacday oo dhibaatada loo geystay oo saa loo dibin daabiyay oo dhibta la baday wuxuu yirniyo walaalkaana dib buu ku maray taa gashay ka daran oo maanta waa ka ciishaysan oo xabsiga ku jira adiguna waxa weeye xaalad xun baad martay bal wixii dhib oo dhacday waxa weeye mid meesha la fadhiyaa noqon halka uu jooga sidii uu garow ku yimi. garow haduu yimi dadku qaar waa iska jidbaysnaayeen oo waxay yiraahdeen kuwa xaalad og ma aha tuuga kan muxuu soo doonay cuninkii way canaanteen oo way caroodeen. hase ahaatee kuwo sheekada ogaa ayaa waxa dhaheen war inanka yarka ah la daay hadeera waxa lagu soo dhibay oo lagu soo dulmiyay Kenya oo waxa ku soo dulmiyay kuwa kufaar oo aan xigaal iyo Soomaali iyo Sinjitoon aqoon oo bahala oo aan cid ka xishoon inanka daay sidayba inankii lagu ammaan galiyay. garowana maanta cisi iyo karaami ku jooga farxad buu ku jooga qof Soomaaliyeed oo ishaaranayo oo dulminayaana ma jiro sida Sharma Boy dibtiisu ay noo dhaqantay ama reer garow ha ahaadeen ama Soomaali kale ha ahaadeen ayaa kuwa halka joogana ay u dhaqantay isaga waa Deeq. marka wax weeye ilaahay kuma darnaade daal cali soo YouTube ga soo dhaxlay waxa muddo dhaxlay tuugu adeegsi bal ilaahay baan idinku dhaarshay fiiriyo Soomaalida tan bila aqliga ah ee qabiilka soo riyoonaysa ee hawiye iyo daarood wax yar baan idin sheegay. daahir cali soo waa hawiye Deeq Darajona waa hawiye يا حبض مدح laga haya Deeq Darajo يا telefoonka ka hagaaya daahir cali soo يا حبض ku haya nin daarooda يا wixiisi in la dhaco la doonaya nin daarooda labada dhalinyarada ah oo yar yarka ah labada tuug ee malcuumiinta ah
ayaa ka dhex faa'iidaysanayay oo dulminayay oo dhibayay oo qabiilku awrkacsanay marka dadka haddeerta qabyaalad iyo ficilada liidata ka sheekeynaya dhalinyarada waxa leeyahay idinka maalin ilaahay keeno ma la isku kindirayaa ma leedin dibindaabeynaya ama siyaasi ha ahaado ama mid kale ha ahaade idinku ma dhib dad kale taad nooshi adeer haddaba kuwa dheefta helayaana waa dadka kaleeto ee aan idin dirnahayn kuwa dhibaatoonayaana waa idinka idanihiina aqoonsada taas wata axmed rashiid ninka ay dhahaan waa nin daarooda oo ogaadeen tolow culimo badan baa Kenya joogta war waxa kan masiibo allaha ku ridee dadkii waa dhibay ilaah magaciisa aan ku dhaartay dadka halka jooga calaacalka iyo catawga ka yeeray waad yaabtaa ragga halka jooga wax dhiman baan ku yiri in la yiraahdo xaaskii soo kaxay qaarkood hadii la doono waa la yiriba waragii Soomaaliyeed dibta ka dhidhii jiray waxa way waxyaabaha qaar geerida ka xigi jiray meesha joogin dad iska dhalinyaro ah oo qaday doonaan biilal bay hooyadood iyo waalidiintooda uga fikiraya يا محسن الله ما كهو سيسوي ده شو ذا ورياره نيكا والكوليست وتو قبيل لما مثل نمن توجع أيها كل مان وده العرسون قبيل بمثله وكاسو كلا وحكاسو عمل كنك تمر صومالي ده إنه صومالي ده إنه دباتيو صومالي ده إنه حمان كسميو أنا أقول ما هي رك حكايته مراها كهسا كجرا حسن قتال با كجرا رجيس حسن قتال ما مقليسا واحد دونيسا إنك صومالي وهستو أو فنان صوماليات بانا هيتراهدو واحد ندونيسا كل كان هلك هاتكتو إنك بلشدة كالتو أو صوماليات دول ما أدو جيستو واحد كلام كجرا نيكي كان يدهان إلك عسقيس شنت صوماليات شنت توب قبياليستا وأنا رج يربي تونا قنبات وريا يعني كم مسكين كها أو هبر قدر أو كاميرمان كها أو الكها كجج بيسي حالة دي سكت شاكين أو عيل كمان تحمل للجوج حالة دي سكت الماء شنت الصومالي نيرد مركز جوج تميد أنا تيجي قربان نقطة أنا أقوله سكت أقوله كذا تو أميل كاحي ماشي شيء أنا أقوله طلع بأقوله إله يربي تونا متقال هذا واحد نو شيء يا برشة الصومالية ولي بقى أنا وحيابها عن كينيا نيروبي كم مقلي والله وأنا حي بالله يتلا فيلمان تي هندي أهيد من حسوست شاكال يوم مقلي جرتي لا سواق عليك به سهل كاودك بوجا كوب كشاحة أفك وقلي وحيابها مقلي جرتي تي بقى نيروبي كسعت لأن يرى كأهي واحد برشة الله صو دير اللي بعتذر يبعد الله قاعد دمر كم مساكين تأهي تعدي يكوفس يعيل خلوه جيستو ولا عدد ولا حسابك ولا بعنو ردان شيء جاي دت كويك اللي هنا الصومالي كلا اللي بعتيا فشو قبيل يا مركب الله يا شيخ اليوم الله يا شيخ قال تو يسوي نجري خير الله السيء شيوخ صوماليات خير كشقيس خير كتلمانت والعلماء كينيا جوكتان كربا كجرته كربا هوب با كجره هوب قف مسلمه هدي لا دلمينا مسلمين تو دن با لا دلمي ilma adeeryaal waxa weeye shuyuukhda ugu sheergaray oo u dira luuqyada ugu dira waad haysan lambaradooda kuwa u dhow iyo kuwa aan u dhow daawanayaan war sheekh kasta oo Nairobi jooga tilmaanta yaarinka gaarsiiyay kowda war nimankaas dadkii way dhibeen ilaahay ha dhibeen dadkii way dhibeen dadka Soomaaliyeed ee halka jooga hooyo lahaataya aabba lahaataya wiil lahaataya isliin baqdin baa lagu joogaa war nimanka hal la qabto oo waxa weeye hadii aqli wax loogu sheegayo loogu sheego ma hadii kale de sharci ha loogu tilmaamo salligii iyaga joogo oo qaar tuuga aba joogo oo dulmi geysanay kan waa kan gaarisa isaga ay shaqadiisa tahay inanka yarka baadayo halka yimi waxaasa wax laga aamusa dekanaha iyo dhibka ay geystaan dad Soomaaliyeed bay waxa weeye dhibaato ka dhaxabuuraysa ilaa nin walba magaalo degan yahay dadkiisu joogaan oo waxa weeye kan dadkiisi laga helayaa waxa kan dadka laga qabto nacalada Ilaahay ku dhacday dadka laga qabto magaca Ilaahay baan ku iri waad naxaysa waxyaabaha laga sheegay
ويقصي واكو قبني dhibaatooyinka iyo tacadiga iyo waxa ay sameeyaan nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri haday murra ka qaraartay murra sheega buu yiri aan ku dhimanayna annagu qabiil baa qabrina la galay war waxa kan dadka ka qabta oo shuyuukhtu ka hadasho sheekh umul iyo shuyuukhda kala meesha joogta khayr allah idin siyaade rayaan anu waa idin jeclahay ina sameeyo wanaag dadku waa haysan baan ogahay dadkaas dadka waa dhibeen qaatiyaan baa laga taagan yahay waxa weeye Kenyaatiga iyaga kaga daran Kenyaatiga khabariyaakuga ah ee ma garanaysaa wadanka iskale iyaga kaga daran oo kaga dhib badan marka waxa dadka ka qabta oo wallahi kuwa ooyayaan arkay oo kuwa murugaysan baan arkay oo kuwa waxaan arkay baan ku yiri naf iyo maal waxba iguma harin leh oo haweena oo raga oo odayaala marka waxa kan tii waxa weeye in la isqabtaa waa lama huraan oo waxa tan loo yahay waa in la is ceshadee yaadiikum alcaafiya waxa kan dadka ka qabta inkaarta ilaahay ku dhacday ma sharaf iyo karaama nin dhalinyaro ah oo halka jooga oo hooyadii wax barasho u soo dirtay inta madaxa laga tagto wuxuu sanay in lagu sheego gabar yar oo dukaan la in la yiraahdo ayaa kaalay haddaadan inta bixin waa dhimanaysa warqaar baa gabdhaha inta la xariisto bilahay sabab bayoog bayan marka culimada waxa leey iyo kuwa wax kala garanaya inta aqliga leh baa badan inta dhaqanka leh baa badan inta dibta diidan baa badan inta diinta leh baa badan waxa kan magac xuma laga dhaxlayaa waxa kan dadka laga qabto ilaahay baa inuu ku fiirsanayo dhibaatada ay geystaan dhashiinay ka muuqan kartaa waxa kan dadka laga qabto qofka muslimka waa inuu waxa ka hadlaa hadduusan gacan kaga qaban karin waa inuu waxa weeye carab kaga hadlaa weeyaan waxa ehl loo yahay xigaa loo yahay oo tol loo yahay dhibaatada in la iska reebo dhaqan iyo diin aan la hurayna waxa weeye taasa inoo ay daliil ee baahay tilmaamay nimanka dadka laga qabto ninka kan Ahmed Rashid amal buuba ka dhigtay Soomaalida dibkeeda wariyaa in gumeedow dhashay iyo dhalaanka aad dilayso iyo dadka Soomaaliyeed dhiigooda daadinayso ma damiirkaagu ku siinaad Kenyaatiga dishadan ragatay ida fuleeyahay magan masaakiin martiya geesi baad soo haysatay geesi wallahi billahi tallahi fulay baad aabo ka yariga celo ka weyn iiday mariyama laysu Kenyaatiga شاب قال قبيلة كياتي يا جوجا ما المدحبة كل فترة واحد وينتي وحني وينتي وقيس وتر ولاش الصومالية هذا مساكين تا لنا يرضى ولا لها أكل ديك أكل دعانك وارنت هديلك كرت ديشي أنت هديلك كرتو ديشي قف بني آدم إنه ديك يسقف يدل من قدام واحد النار إلهي وطوابت كان أنا أقول إلهي وطوابت كان ما هذا سيدا كل ما أهل النار بات أنا سيدا كله waxa kan guruucda ah kugu lamaanay hoosta kaaga jirana wadaar xiniyo ma sheeganaysa kartib leedin ordaya dadka shisheeyaha iska celi oo iska daaya maxas iyo dhalaanka dadka Soomaaliyeed xaraan baad wada tiiri baad ka qaayso qofka Soomaaliga gangster if you want to hear a gangster qofka gangster dadkiisa kuma soo hormar dadkiisa ma soo aado dhalinyartiisa ma bahdilo dumarkiisa ma bahdilo shisheeyuhu ka ara waxa weeye difaac buu yahay dhalinta waxa weeye iyagu ilaaliya wixii godob laga galay u dhahaday waa dhalinyare wixii dumar la bahdilay wuxuu dhahaday waa dhalinyare waa dumar idinku iyagii waad ka bilaabaysaa dufku ba حويان باتي waxay leeyahay bays moodeen adana hadda tan sileedii waa joogaysan baraad ka tagaysan walaaladin magaalooyin kale joogan eheladin magaalooyin kale joogan hadda tan ku xoogdisii sheeganaysan bulshada Soomaaliyeed ku dhibaysan ad ku ciilaysan ku colaadinaysan ila goona joogsan waxay wax kan xawayaanka baaruulka dugaaga ah ee duliga dadka laga qabto dadka Soomaaliyeed halka joogan wax leey war hadda intaad ma sidii bisadii hal maalin noolaan lahaydeen boqol sano aad noolaan lahaydeen sidii libay hal maalin noolaan
waxa kan iska qabto baangadaha ay wataan ka qaado la dhaca dulmiga waad ka baxaysaan ma hadii kale de weygiisaas aad u baxaysaan u balbalaysaan oo xaaladaas ku jiraysa haddaad iska dhicin lahaydeen waxa kan mar hore sumeyn lahaydeen ama shaaxa aad wax ugu dar lahaydeen ama biro aad la dhici lahaydeen ama surka aad ka goyn lahaydeen ama si uun ku dili lahaydeen masil caasaad mar lahaydeen iyo adoonsiga iyo dulinimada هماي شرف دشينا كنا ولا لايت لكن إذا كنا هذا كمان نولدي دشينا كمان نوع واحد كان قبيل لما مثلا دمنا من مثلا والتوب رك يا رب يا إسلام يا مساكين أنت وما يغنين يا صومالي أنت وما يغنين اسكدعي والله بالله تالله وحيابها اللي يغشي كي وعن مغلي أو في رد اللي تصي أو مقلد اللي مغشي وانح أدبرنا أد أنا قدرت كان كوه الله يرى إيش يا جماعة كياسين ما دتك نيروبي جوا كودي من كوه الله قصي بقى برنامج كما كان تدبو كل من ورسل وخير يكون سو آخرية دون بكوه أما إلهي وحواني وصدره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.